ويناتي مركا سكول دميسي maxaa sameynaysaa jaamacad markaa ka baxdo maxaa jeceshahay inaad noqoto waa dhibane Najmo Cabduqaadir oo ah 12 sano jir horaantii bisha lagu geystay kufsi wadareed magaalada Burjilna ee gobolka Nugaal oo imika sariir u saaran falka kufsiga ee loo geystay waana gabar agoon oo ku haminaysa in mar umriyadeedu ay noqoto dhakhtar dadka daweysa balse haatan waxay sariir ay u saaran tahay dhibaatada kufsiga ee loo geystay waxaana la jooga ehladeeda gaar ahaan laba gabar oo la dhashay markii aan gudaha u sii galay qolka ay jiiftay waxa ka muuqatay walwal iyo argagax waxaana iyadoo qeelinaysa ay ku dhawaaqday yaan la idurin waxaan u sheegay inaan ahayn dhakhtarkii wax duraya aan ahay qof soo booqday markiiba waxa la ii ogolaaday inaan xaaladeeda aan waraysi ku saabsan aan qaado walaasheed ay isku hooyo yihiin balse iga cusubtay magaceeda iyo wejigeeda inaan saxaafadda aan u adeegsanin ayaa iyaga warantay xaaladda Najmo sida imika ay tahay anagu kumaana ogeyn xanuunkan oo waxa loogu soo qaaday boosaaso xanuun iska caadi hadda ka hor garowga loo keenay balse hadda waxa xaqiijisay dhakhaatiirta in ay sheegay xanuunka jiro misana gabadha waxa lagu sameeyay xogaa nadiifin in la soo nadiifiyay haddana aad u xanuunsantahay u jeedaan isbitaalkan saafi galab maanta joogto galabta marka Najmo xaaladeeda allaha waa saqir kara ilaahay bana caafimaad sii kara sidoo kale waxaan weydiiyay sida loo ogaaday falka kufsiga ee loo geystay gabadha yar bismillaah waxa la ogaaday dhakhaatiirta ayaa baaritaan markii lagu sameeyay baan ogaaday oo sabtidii markii saa loo kan jamacada la keenay sabtidii baa dhakhtarka la geeyay gabadha waxay tiri waan xanuunsanayaa nabraad bad iga soo baxay kadib waa la ogaaday markii la ogaadayna dee isha waxa dhacday in arrinta la sheego oo isha lagu sameeyo nadiifintan oo isbitaalka marka gabadha in kufsi loo geystay miya ma la ogaa markii Burjilna ay joogtay oo waxa sheegtay in xanuun inuu dareemayso gabadha may wax qof ogaa ma jirin wax lagu ogaana ma jirin meeshana looga war helay meeshana waxa loogu soo qaaday in xanuunkii garowga hadda ka hor intay xanuunsatay bish koowaad la keenay ilkayo wax infection iyo xasliga daawo dib aan celiyay misana markii meeshan la keenay xanuunkii inuu ku soo laabtay amal baa loo keenay waa gartay marka goobta xagee ahayd marka ma guriga mise iskuul ma guriga ahayd noo sheegtay marka goorma iyadu idin sheegtay maalintii nadiifinta la gelinayay maalintii ka horeysay noo sheegtay alwa naga diiday inuu sheegto inta ka horeyso dhan way idinka qarinaysay miya waa noo sheegtay inay saddex nin ku ahaayeen sababta ay u qarsay waxay tiri hooyadii baan ka baqaayay cid kale tooray bay la soo bixin nimanku waxay bleen carna sheegdaan sheegtoo ku dilanaa ciladaasna way jidhay maamadana waa ka baqay bay tiri waa gartay marka waxa sheegtay marka in xaaladaas ay qarinaysay marka wax xanuun ah miyaa jiray oo ay dareemaysay xanuun waa jira xanuunka lagu fahmay bal ma fahmeen dhanka kaadida iska xogaa iska caadi weeye laakiin iyadoo meesha wax way gaareen way ka xanuunsanaysaa mana fariisa ka dhaadan waa gartay marka dhakhtarkii markii baaritaanka uu soo bandhigay kadib bay iyadu sheegtay miya in arrinta ay dhacday maalin ka hor bay sheegtay subaxa u kaxaynanay meesha nadiifinta bay noo sheegtay Najmo ayaa markii aan la hadlayay waxa ay u muuqatay mid weli saameyn uu ku yeeshay nolosheeda kufsiga waxaana jira qaliin lagu sameeyay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Boosaaso waxaana ehelkeedii dhakhtarka isbitaalka kale haatan la jiifiyay ii sheegeen in qaliinkaas uu ahaa mid aan lagu guuleysan ayna jiraan dhaawac soo gaaray xididada qayb ka mid ah iyadoo dhakhtarka goobta la dhigay uu ii sheegay in xaaladeedu ay tahay mid aan waxba aysan ka qaban karin Najmo waxa sidoo kale ay ahayd gabar waalidkeed caawisa marna barata Qur'aan iyo dugsi oo ay ka ahayd fasalka labaad iyo Quraanka oo ay ka dhiganaysay duska saddexaad ee Quraanka Kariimka haddaba kufsiga Najmo waxa uu qayb ka yahay taxanayaal kufsi oo ka dhacay Puntland labadii bilood ee la soo dhaafay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta Puntland wasiirkeedu aan weydiiyay kufsiyada sii badanaya iyo waxa ay ka qabanayaan kiisaska uu ka mid yahay Najmo Caashi Ilyas iyo falal kale oo ka dhacay Garowe ayaa iigu jawaabay sidan qofka ay shaqada warkeeno arintaas waxay leeyihiin xaqaaqta ay leeyihiin ay mutaystay la mariyo wax kale oo ka furan ma jirto si loo soo afro xaqaaqta ay leeyihiin inay marto weeye oo
rakaaduna waxa weeyaan aad u xanuun badan in la marsiyo weeye haddii aan arrintaa la samayn annaga ka cadaalad ahaan waxa weeyaan dadkii dambigaan galay inaanu cadaaladda hor keenno waana la horkeenaya haddii aan layno laakiin soo qabashadooda iyo waxaas iyo laamihii ku shaqa lahaa ayaga waa gartay marka kufsiyo badan oo hore u dhacay waxay ku dhammaadeen in wada hadal dhex maray odayaasha labada odayaasha beelaha ee gabadha kufsiga loo geystay iyo dadka geysta halkaas in odayaashu lacaga ay ku kala qaataan gabadhaas xuquuqna aanay helin halkaas ay ku takoornaato oo dhibaatooyinkeeda iyo xaaladeeda aan hoos loo eegin marka maxay arrintaas kaga duwanaan doontaa kiisaskan hadda dhacay arrintaas waa ka duwanaan doontaa waxaas wax jira weeyaanoo arrimahaasi iska dhaqanka lagu xallin jiray wax inoo joojinaya maaha ama ka hortagaya kursigu inuu istaago waxa kale kursiga hor istaajinaya waxa weeye oo gabdhaheena badbaadinaya in qaab xanuun badan ay helaan in dadkii waxaan geystay odayaasha dhaqankana way ka waatoonayaan horey hadda u dhacdana ma dhici doonto insha allahu arrintaasi wax kastoo ay ku kacayso waxa weeyaan dowladda diyaar baa u tahay inay ka hortagto inaan wax dhaqana ama xeer ama qabiil odayaal isu tegay ama mag la kala qaatay inaan lagu xallin dadkuna waa inay fahmaanin hoola la kala qaatay gabar la kursado hoola laga qaatay kursiga ma yaraynaysa waa badinaysaa waxa kale haddii karaysada waa cabsigelinta ku ah oo joojin karaa kursiga waxa weeyaan qofkasta qaabkii mutaystay la marsiiyo sabaab ahaan wasaare cadaaladna waxa weeye annaga dadkii dambiga galayaan shaqaga horkeena waan horkeenaynadaan khaas ahaan gaar ahaan guud ahaan soomaaliya inay fahanto kursiga keliya waxa lagu hortegi karaa inay tahay dadkii kursiga geysto oo qaabka ay lahayn la marsiiyo waana marsiinayna cadaaladna dowladda waa ka doonta arrintaas qaar ka mid ah cilmowdiinka ku dhaqan degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ayaa si kulul uga hadlay kufsi wadareed la sheegay inuu ka dhacay degmadaasi sidoo warkan Buurtile uga soo diray Mawlid Maxamed Kooshin culimada degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ayaa si kulul uga hadlay kufsi wadareed ka dhacay muddooyinka u dambeeyay deegaanada Soomaaliya doctor kulankan ayaa ka dhacay hoolka shirarka jamciyadda Ansaaru Sunna ee degmada Buurtile culimada ayaa dhamaantood ka hadlay diintu waxa ay ka qabto waxayna kula dardaarmeen nabadoonadu inay Ilaahay ka cabsadaan aysan ka boodin diinta Islaamka qof kastoo xadgudub sameeyana ay marayaan shariicada Islaamka shirkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay oo aan gobashan u dhignay يعني عقاشة علماء يدمان يماملك وعن أقول برنامج سوماليا كسر عصبون علي أو كفس اللوجي سنة قبلها يركعه وها عجائب له وعو يقفك قريول يقبر له يتوجره أو هذا شندن أما سدحنن أما أفرنن أو يرتحي وبرنامج عجائب له وبرنامج سوماليا أقول كوه وبرنامج هذا اللي يهرتجين نقول دانته أما قف كستيل ويل كيسة وحكف صده أما أي جواد يسلا كف صده ولا ليال بالشيء إسلام مرة ديننا وحى لا يهرتجي كرا شرع الإسلام إلا قد رقمه لكن وحويه إلهيكم مكلف في الأمة إنه حير يوم كسم إستاني إنه كحاج شو ذا منا وحكم إلهي بقى كذي يقف كفاحش قال وحي اللي هو عقاب لها إلهي بقى كذي هالوفري الوفري محد يدي أمة الإسلام عنها مامور كبار لسان حاكم كبار جوجا نائب كي عدة كاد بعد جوجا حدود هرت الدولة ده فريسان لكن الدولة دي نواجه جوجا حاكمين تيادات كنائبكم دقمة كاستهرت وميل والبعين نائب ودبا دولة دي جوجا المحكمة ده هلا جيادات كان حق هلا وفري حد يدي يوي محاضر يا شو يا عليس يجا إن إذا واحد إنه كحري واحد سنسينا إذا باتان سنينا حاب دبتها كاني محكمة ده هلا جيادات كواحد متستان هلا وفري ومركي حلك الله ربو إن وحوي إلهي با وحجريا حلكو كتير بارك الله فيكم نبضانكو مسؤولية أنا ولا ويدين تونا بلشدي أد نبضانكو وعيد الغو على مساري محاضو قبطي دينتي إلهي محاد كذا حكمتي حماتي كشرتي وحما كقبطي ما كهذا شيء ما كهرتكتي ولا ويدين تونا يونا حق الدولة وحبي سجليها قيبو كيه وحا يسقونا مسؤول تليها بوليس كي مجالة تشوجه هل كاتشوجه iyo gudoomiyaha degmada in laga joogo tariid booliska in la jooga laakiin gudoomiyaha joogay maalinka qiyaamo waa la weydiin sidoo kale nabadoonadii iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurtile oo ka soo qayb galay kulankan ayaa dhankooda soo dhaweeyay sheegayna inay ku dhaqmi doonaan aysan ogolaan doonin in maanta kadib waxaan diinta ahayn wax lagu xukumo qofkii geysto faldambiyeed ilaahay kitaabkiisana meel dhaantaa ma jirto waa soo dhaweynaa ilaahay kitaabkiisa inaan ku dhaqanno inaan ku shaqeynana waa ballan qaadana anagu waxa awooda u leena waxaan awood u lahaynaa ilaahaba nama saarin aligi degmadu waa fadhiya hadda xukunku isagu u tagaan badiba waxaan kula dardaarmaynaa markii lagu keeno
yaan laba oday kuu imaanin oo waxaa jeesanaynaa ku odhanin xukunka kitaabka aad ku aragta ku xukun dadka gaar ahaan dadka dhaqanka ah ee carabku ku yeerayo annagoo ku hadlaynaa afkooda waxaanu amraynaa inay ummaddu u hoggaansanto sharciga ilaahay ma nihin annagu dad waxaan sharci ahayn wax ku xukumaya wax ilaahay uu xukum sharciga ka soo jeediyeyna ma rabno inaan dhaqan iyo waxyaabaha dadku ay sheegaan ku dabaqno diyaar waxaan u nahay oo dadka faraynaa Soomaaliyeed Puntland reer Buurtinle in ilaahay sharcigiisa loo hoggaansamo si ka saxaal ku ahaada waxaan ku talin lahaa in arinta gaar ahaan iyo khaas ahaan magaalada waxa ka jira in kooda qabanayno isku duuban kufsi wareedyadan kusoo badanaya deegaanada Puntland ayaa ilaa iyo haatan aysan jirin cid lagu xukumay shareecada islaamka marka laga reebo kufsi ka dhacay degmada Garbaharey ee gobolka Gado nabadoonada iyo odayaasha ayaa iyagu ah hoyga kaliya ee looga weecdo shareecada islaamka waxayna inta badan